بسم الله الرحمن الرحيم. السمدة عقاشة قلاء وسير هذا وحي كجوغة ودونك الدقمدة يكن قبل كي يكن دقمدة تليها غيبتا دليارada haweenka iyo bahda saxaafadda ciidanka amniga lama waxaan ku salaamayna salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib golahan quruxda badan oo lagu maamuusayo lagu caleema saarayo beeldaaje cali beeldaaje salaad maanta waxaan u maleynayaa waa xaflad dhaqan oo hadal badan uma baahna duco iyo dardaaran iyo soo dhaweyn wixii laga hadlaaba inay inta noqonayso baan rajaynayaa waxaan leenahay marka beeldaaje soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka soo qayb galno maamuuskaaga iyo xafladan quruxda badan oo maanta lagu sameeyay inta kadib waxaan rabaa inaan beesha soo saartay oo halka keentay beeldaaje cali beeldaaje salaad kelmad yar iraahdo beeldaajana aan kelmad iraahdo insha Allah beesha waxaan rabaa inaan inaahno beelay waa mahadsantihiin waa la maleynayay laakiin beeldaajuhu xilka loo dhiibay waa xil weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo wuxuu u baahan yahay garab wuxuu u baahan yahay talo wuxuu u baahan yahay gacanqabad wuxuu u baahan yahay ixtiraam iyo maamuus sida dhacda xafladan oo kale dadkeennu waxaa laga yaabaa berri in wax isbedelaan oo ay soo galaan in dano iyo hawlo shakhsiyeed oo intaraysa laakiin golaha dhaqanku ummaddu u dhaxeeya waa dhexyaal beesha soo saartay keliya kuma ekaado innagoo dhan buu beeldaaje inoo yahay arrintaas waxaan rabnaa sidaa maanta loo maamuusay in loogu wado oon waxba iska bedelin beeldaajaha waxaan leenahay beeldaaje soo dhawow aad iyo aad baanu kugu faraxsannahay waxaa tahay beeldaaje ka soo baxay beesha maxamed harti waxaa tahay beeldaaje harti waxaa tahay beeldaaje puntland waxaa tahay beeldaaje soomaaliyeed intaasoo dhan insha Allah waxaan rabnaa oo aad dhexyaal ugu noqon kartaa oo aad ka dhexda muuqan kartaa waa cadaalad insha Allah adigana waxaan rabnaa inaa insha Allah halkaas ka wado oo ummadaas aad u tahay beeldaaje oo anigu aan ka mid ahay aad insha Allah cadaalad iyo waxqabad aad ka dhex muuqatid annaguna waxaanu ballan qaadeenaa ka cuqaal ahaan inaanu si dhow oo xushmad leh oo qadarin leh oo ixtiraam leh aanu kugula shaqayn doono intaasaan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh